wasiirkii hore ee wasaaradda cadaaladda dalkani Jarmalka Mrs. Brigitte Ziebris ayaa kulan aad u qiimo badan la qaadatay jaaliyadda Soomaalida ee isdhexgalka bulshada iyo dhaqanka ee xaruntoodu tahay magaalada Darmstadt. kulankan ayaa noqonaya taariikhda markii ugu horeysay ee xisbiyada mucaaradka dalkani Jarmalka ay si foolka fool ah u danayaan codka ama kasbashada jaaliyadda Soomaaliyeed ee iyagu ku nool dalkani Jarmalka. waxaana wasiirkii hore ee wasaaradda cadaaladda halkaasi lagu weydiiyay su'aalo ay dadka Soomaaliyeed ee iyagu xaq u leeyihiin inay codeeyaan weydiinayeen. aad ayaan ugu faraxsanahay la kulankiina. waxaan mar kale iyo mar kaleba ugu mahadnaqayaa sida quruxda badan ee aad uga soo qayb gasheen, anigoo si gaar ah ugu mahadnaqayaa Haji qabanqaabada uu hawshani ka galay. wo ihr Kind später entschieden, ob das die Kinder bekommt ja so eine anerkannt und die Mutter nicht. Wie kommt man das? aan soo koobaynay micnaha uu journaalkaas uu ka hadlayo paragraafya, laakiin hadda B1 ayaa lagu xiray. dadkii maxay ahayd B1 mooda shaafeyn karaan, inta shaafeyn karta waa iska yartahay. siiba markaan ka hadla haweenka Soomaaliyeed, haweenka Soomaaliyeed barnaamijkooda ayaa iska badan. ilmaha meeshan ku hayaan ayagoo kaligood ilmihii waa ogtihiin dhibkooda waa badan yahay. SBD amaanta wadiinaya ama xisbigooda wadanka u taliya oo Suudiga ah. su'aasha ah maxaa sababta ay tahay in ilmaha ku dhashay wadanka ay markaas ay dhashaan dhaha qaxootiga Islaandarka soo qor wadamada kale kana isla markaas dhalashada loo siiyaa. kulankan ballaaran ay isugu yimaadeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee isdhexgalka bulshada iyo waliba dhaqanka ee xaruntoodu ay tahay magaalada Darmstadt ayaa ay kula kulmeen xisbiga ugu weyn mucaaradka dalkani Jarmalka oo lagu magacaabo SPD. waxaana xisbigaasi jaaliyadda Soomaalida ku codsanayay sidii codkooda ay u siin lahaayeen hadiiba uu ku soo baxo doorashada dalkani Jarmalka. waxaana jaaliyadda Soomaaliyeed isdhexgalka bulshada iyo dhaqanka oo xaruntoodu tahay magaalada Darmstadt iyo xisbiga SPD dhex maray kulan isafgarad kaas oo runtii aynu filayno in midhadhalkiisa la arko. Mustafa Xaaji Aadan Haarun, telefishinka caalamiga ee Home Cable TV, Jarmalka.